بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن أو وناكسن سوري هذا داودياشي قيمها هي قدرين تمدر واحد لو ذاك يحويه قدام بي حالك دالك الصومالية سيدا دكسونتي بقبل كجدا قارحان دقمة بلد حاو شير آدي آدو ويايا كدع عمانتي شركاس وحو دحيي بيلها السدي قارحان شركاس وحاسوق من قابيه أو موقف كيسكو عدين يا عبد الرشيد جرن أو أمريكان عداتي أما ستوس أوغسو ديقرقتي kooxda gargurtay uu hogaamiyo sidoo kale gargurta ayaa waxaan loo xaqiijinayaa in uu rabo in uu magacaabo dhankii uu kaga tagay ninka la yiraahdo Cabdirashiid Janan inuu u magacaabo shirkaynan maxaase ka qabsaday sidoo kale waxa idin la wadaagayaa dagaalka ka socda Sanaag oo u dhaxeeya beelaha walaalaha ee Warsangeli si degdeg ah dagaalka waa in loo joojiyaa waa qodobkayga koobaad oo qaada dhigayo sidoo kale waxa si toos ah hakaday isku dayadii iyo caqalatayntii lagu waday Puntland oo dhanka Galmudug looga waday waa istaagtay gabi ahaanba markii runta sida tooska loo soo taabtay lana arkay in muuqafka Puntland uu yahay lama taabtaan cid kastoo ku soo xadgudubtana ay dagaal ku jawaabayaan soo dhawaada hadaba marka waxaan u hormarayaa marka koobaad waa baaqa aan u wado dagaalka ka dhacaya halka iyo gobolka Sanaag waxaan rabaa halka inaan si toos ah fariin uga diro dhammaan meel kastoo ay joogaan biyihii daarood Ismaaciil uqaasha waxgaradka culimaadudiinka odayaal dhaqameedka dhalinyarada cid kaste oo daarood ku abtirsata waa inay dagaalkaas si toos ah uga qayb qaadato sidii loo joojin lahaa ka kaca fadhiga waxa islaynaya waa dadkii wada dhashay haddii caqli ayaga kala qaban waayay caqli waxa uu ah kuwa la dhasho walaalahooda gorbahooda taagan SSC waa in laga dhaqaaqaa Puntland waa in laga tagaa halkaan iyo Galmudug waa in laga tagaa halka iyo Gada iyo Jubbaland waa in laga yimaadaa Killer 5 waa in laga baxaa si toos ah waa in looga qayb qaataa sida arrinkaas soo noqnoqday oo foosho xun oo dhibka nugu ah oo dhabar jabka nugu ah oo aad iyo aad wax looga xumaado ah dagaalka ka socda gobolka Sanaag u dhaxeeya Warsangeli wax loo dulqaadan kara ma aha waa dagaal cawaandinimo ah waa dagaal aan sharaf iyo karaamo lahayn waa inay u istaagaan u kacaan dadkii daarood Ismaaciil arrinka waa in laga hortagaa dib dambana waa inuu soo dhicin dadkaan maxaa isku jaanjaamay dadkaan maxaa isku diray xaalad fool xun weeye waa dhabar jab kale oo halka nooga timid ma ayagaan ka dadkan kala dhicina sokeeyaha walaalaha mise waxa iska dhicina cadow waa fool xumo haddii xishood iyo walaaltinimadii iyo tixgelintii aan mar walba aan raadinaynay lala ayahay maxaan sameynaa maxaa tala ceeb iyo fool xumo inagu tahay maanta dagaalka halka ka socda waa inuusan dagaalkaas dib dambe u dhicin dagaalka Warsangeli waa in laga hortagaa maqla daaroodo qof kastoo daaroodo aqal gal oo wax garanayo klibkaas gaarsi awaan kuma jiro doqonu kuma jirto mid duuflaa kuma jiro kuwa leefleefka yaqaan oo cad qureedka raasanaya kuma jiro inta nadiifta oo miirta ah raba inay klibkan qaadaan oo fogeeyaan waa in dagaalka si toos looga qayb qaataa si loo joojin lahaa waa in meel kasta laga baxaa waa inaan la istaagin marka kooba waa in la hadlo tilaabadii lagu daraa dagaalka waa ka soo noqday meeshaas Warsangeli maalba waa islaayaa birtu iska aslaa si fool xun baa dagaalkaas u dhacaa waa arxan darro marka in lagu fiirsado ayagu haddii ay arxan darro isku sameynayaan anagu inaan ku fiirsanaa waa doqonnimo waa liidatinimo wey yaysa dhicin maanta inba ka dambaysa meesha waxayna ka dhacaan ha laga hortago si toos ah looga hortago oo ha la kala qabto oo yaan la isku fiirsan wax la isku fiirsan meeshan ma yaale inta waxaan leeyahay halka iyo daarood Ismaaciil baan leeyahay iyo beelaha dirayo Warsangeli walaalaha sidii loo kala qaban lahaa waayahay halka iyo Jubbaland sida ogsoontiinba waataan horay inuu kugu sheegay Cabdirashiid Janan inuu ka soo digay rugtay Xasan Garguurte baryahaana shir jaraa'id in maanta uu dhacayo oo balad xaawo ka dhacayo fariintiisa tooska ah oo cadaynayo Cabdirashiid Janan waataa inii sheegay waa dhacday hadaba saldhigga degmada balad xaawo ayaa shirki ugu weynaa maanta ka dhaca Cabdirashiid Janan wuxuu yiri horayna waataa inuu kugu sheegay anigu ma soo arag dawlad meesha kama jirto tuuga qaraabanaysa oo cawaantu ku shaqaysanaysa oo aan aqli iyo sharaf iyo karaamo midna ay ka soo socon weeye dhibaato hore haddii intay fakarka iga qaldeen aan cawaandigaas kamid ahaa hadda waa u dul qaadan waaye anigu waa toos qof kastoo daaroodu maalin buu soo toosi doonaa markuu arko wax runta maalin markaan leenahay war waxaan iska daaya war waxaan ka gabada
waxaan macnayn ma hayaan wartashada oo dalkiina iyo dadkiina u tashada war cunno lama waayo waxaan maqli jiray cunno lama waayo fadhixumay u baahan tahay ayadoo lagu mahmaaho waa run wallaahi been maaha haddaad cunno si fool xun u goobto si fool xun baad u dhimanaysaa haddaad wax daran iyo damiir la'aan iyo dadnimo xumo baa kugu dhacaya weliba haddana qofka cadowgaahu waa ka sii xag jiraa wuxuu kugu samaynayaa waxa dhici karta inuu ku yidhi hooyadaa soo abaahay wax kale intuu markuu kuu waayo kalo oo damay wax kale dhan markuu kaa soo dhamaysto oo ku yiraahdo walaalkaa soo dil hooyadaa qixi wixii soconjaad baraxa oo kale cabdirashiid waa la soo diray dagaal buu ku qaaday dad shacabkii uu laayay oo qaxi waa dadkiisii waa gurigiisii waa walaalihiis uu laayay waa qaxi waa dhaawacay maantay wuxuu yiri cabdirashiid janan wixii horay waa la igu shaqaystay wiil laakiin hadda mid ugu daray hadda dhacday markuu yiri ciidamaan ku dhiibaya fara badan hubkan ku siinaya dhulka waliba marayaan bi dhageysta meesha xaalad maraysan kala shaqeynaya dhulkay marayaan bi wixii diyaar lagu qaatay min mari wax beebayaalkii iyo hubkii iyo ciidanka dhulka la maraysan garbaharey baar dheere buur dhuubo balad xaawo doolow saraf nagaya waxa jooga laabi بابا كدك عكت مري شرب أكودر عسيريا العكت أنا مركز أكو قد أبوليا ويا عيدك يجسوا تودير ضد كمان نخشة كسيرة شو كسو فكرة إنك ليش كينيا ويا عيدك يدياري هذا عيد مثلا وحال الربر كورجول كجدين وجوه هذا الربي حق لو وعي وركذا وكذا حقيقة نبتة عيني شقية عيدك قبل هذا لو وعي waxaa la rabay goolka gado marka hore laga bilaabo cabdirashiid jeen baa la rabay la siiyo oo goolka gado dadka shacabka oo reergado oo mareexaan ugu laayo lagu xasuuqo waayay meeshii baan sii tagayaa ciidankii xagga ahaa iyo barnaamijyadii baan isku dubridanayaa wixii aan mataqaanaa aan dhiraandhiri karo wixii waxa rabaa diyaarsan cidii diidda halkaasaan goolka gelinayna ana waa kaasii hormaraya aye waa gargurto cadhaaya diyaarada helicopter lagu soo qaado dhoc markuu ka yiri xalada diyaarada iska baxa markiina baaq ku dhufto kacay warwaa maxay isku soo baxa maalinta sibtida oo bisha 25 tahay shir degdeg ah rabaabi saldhiga balaha xariyuukay ma xariyuukay waa laga soo tagay way xariyuukay waa dhici ka information inuu gudbud diidanay moogta saldhigii weynaa ee degmada balaxaawo ayaa maanta waxa isugu yimid wax allaale iyo wixii wax garad ahaa oo balaxaawo joogay odayaal dhaqameed aqoon-yahano culimo awdiin wax garad cid kasta oo ay ka kooban yihiin saldhigii baa maanta tagay magaaladii balaxaawo ahayd hal abaab oo ganacsi maanta ma furnayn waa la diiday qofkii fura gacanta lagu dhufanay tag baa lagu waayay meesha tag shirkan xaqiiqi shirkii waa dhacay cabdirashiid saddex waxyaabood buu sheegay wuxuu yiri col baa soo arkay ee caaqibo ma soo arag goolka gada soo gubaa laygu yiri ee caaqibo ma soo arag mareexaan waa inaan qof ka soo harin inta hartayna oo in anagu aan maamulano oo arrimaha naga kaga shaqaysano wixii mataqaanaa santuuqyada lala wareegayeen aan dhigano baa laga rabaa bali waa ay cuntaba weyday biiri horay haddaan eed u galay oo dambi u galay oo aragtidii guracnayda garguurta intaan soo qaatay aan walaalahay iyo dadkayga ku laayay maantay waa ay cuntaba weyday mareexaan dhammaan soo laa wadada baabuurtu ku maraysa duulaanku halkaas ka soconaya way cuntaba weyd mareexaan oo diyaar garooba cid kaste oo aniga iga dambayso oo caadaqaato noqotana halka ka calaamadiyo waa xaqiiq maanta warka dhacay ana waa ka baxay waa ka istaagay waa ka tanasulay mood walaalayaalow Jubbaland dadkiinii daarood qof kasto sharaf lahow diyaar garoobi halkaas ayaa cabdirashiid janan maanta soo dhigay waayahay baa la yiri cabdirashiid hadaad caaqii iyo qashinkii horay lagugu soo tuuray intii qaada lagu yiri dadkaaga la aad maantay ka toobad keentay annaguna waa kula qaadanay horay Jubbaland baan u ahayn hadda waa nahay hadawna waa sii noqon doonaa horay daarood baan u ahayn haddana waa nahay hadawna waa sii noqon doonaa guusha iyo gobonimadaas maanta baraxa way ka dhacday
markuu inta maqlay in shirkii jaraa'id dhacay Cabdirashiidna arrinkii guracnaaya garguurta soo siiyay markuu u jeediyay beelweynta Mareexaan gaar ahaan degmada Balaxa oo shirka uu ka dhacay garguurta waxa la ii sheegay gudoomiyaha degmada Balaxa oo shirkaynaan ninka la yiraahdo inuu qadka telefoonka kula soo xariiray oo yiri adaan ku magacaabaya booskii Cabdirashiid Janan shirkaynana waxa la ii sheegay inuu nin adag yahay oo formationna waa ka hayaa inuu ku yiri anigu booskaas alhayka alle boos dadkayga aan ku xasuuqahayo gobolkayga aan ku gubahayo hooyada iyo walaalahay aan ku laynayo ma qaadanayo garguurto bax telefoonka ku damiyay goliyo gabanimo shirkaynaan ma aha dadka lagu shaqaysan karo shirkaynaan ma aha dadka caadaqaatu ku adeeganayo shirkaynaan ma aha dadka caloosho shaqaystaha dadkiisa iyo dalkiisa ku xasuuqaya gobonimo ku aqaana ku bartay guriyo gobonimo intaas halkaas ay maanta ka dhacday halka iyo Puntland iyo wixii laga sheegayo meelaha qashqashinka ahaa dib ay u gaabsatay xagaayadii dada roob ma noqoto dada Soomaaliya ay dhagaysta dada roob ma noqoto dadkan waa is yaqaanaa abs isriya abu isku yaqaanaa nin walba abtirsiyihiisa sida u qormo qof walba waa yaqaanaa abtirsiyaha dagaalka waa la yaqaanaa dadka kule haddii gacanta la saaro abtirsiyaha si cararka oo marka hore daandaasiga cid iskana waa la yaqaanaa wallahi run bay tagtii billaah wiilasha indhaha gadgududnaa Puntland markii la arkay inay soo jeesadeen oo sidii korogugi ay leeyihiin markii la arkay shinni guurtay bay shinnida waa taqaanaa ilaa 3 kun 4 kun bay isku raacdaa hukunkeeda ninka yaqaano oo yaqaana uu carraa geedu ku gabadaa meel aan ama taqaana ay sakaarki karin buu aaday banaanka isba taago wallahi hukunkii markii la maqlay wiilasha indhaha gadgudunaa Puntland geedaha la hoos galay markaas calaacal iyo cabaad lagu dhuftay inta aanu waa malaynay waan arkayna soo socoto halkaas ayaa xaaladdu maraysa intaanu dib u kulmi doono waxayna kaga tagayaa sida